kusoo dhawaada daawadayaal xaqiiqooyin sax ah oo ku saabsan noolaha libaaxa. Sida aynu wada ognahay, libaaxu wuxuu ka mid yahay dilka naasleyda, waxayna bahwadaag yihiin bahda bisadaha, asigoo waliba ku sii abtirsada xawayaanka hilibcunka. sidoo kale waxaa lagu leeyahay boqorka kaynta, balse wuxuu ku nool yahay isagu dhulcawseedka iyo banaanka. libaaxu wuxuu leeyahay magacyo kala duwan, waxaana ka mid ah aar oo la yiraahdo libaaxa lab, gool oo la yiraahdo libaaxa dhadig, gaani isagana waxaa la yiraahdaa libaaxa lab ee 2 jirka ilaa 3 sano jirka, cagaburur isagana waxaa la yiraahdaa libaaxa dhasha, raxan isaguna waa libaax koox ah oo markaas isku soo bahaystay inay wax u gaarsadaan. libaaxu waxa uu u noolaadaa raxan kastana waxa ay ka kooban tahay 20 ilaa 25, marmarka qaarna waa ay ka bataan tirada raxanta, waxaana go'aamiyay helitaanka cuntada iyo biyaha iyo daadkaba. haddii uu hoos u dhac ku yimaado arrimahaasna waxaa raxanta ka dhex abuurma oo ka dhasha dagaal sokeeye, sidaasna waa ay ku kala tagaan alaaba. libaaxu waxa uu leeyahay cod iyo ciid dhawaaqeedu gaaro ilaa 5 mayl iyo 6 mayl. aarka qaangaadhka ee dhererkiisa jiifka ahi waxa uu gaadhaa ilaa 3 mitir iyo 4 mitir. culeyskiisuna waxa uu kor u dhaafaa ilaa 250 kilogram. cimri ahaan libaaxu waxa uu noolaa 12 ilaa 15 sano. libaaxa lab waxa uu waqtigiisa badan ku qaataa waardiyeynta deegaanka oo isagu ka arrimiyo iyo ilaalinta dhishiisa yaryar. libaaxa dhadiga waa ugaarsadaha rasmiga ah ee raxan walba. sidoo kale libaaxu ma ahan xawayaanaadka cuna meydka ama baktiga xawayaan dhintay, waxa uuna weligii hormuud u ahaa geesinimada iyo dhiirinaanta shaqadiisa.